kulankan maanta uu la qaatay madaxweynaha Jubbaland Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe xubno ka tirsan qurba joogta Soomaaliyeed ee ka yimid dalka dibadiisa ayaa waxa uu kula qaatay gudaha xarunta madaxtooyada waxaana maanta uu sameeyay kulan qada sharaf ah oo ay ku wada qaateen gudaha xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo markii qada sharaftaasi ay soo gabagowday kadib ayaa madaxweynaha maamulka Jubbaland waxa uu khudbad dheer ka horjeediyay kulankii uu la yeeshay xubnaha qurba joogta Soomaaliyeed ee markaasi soo gaaray magaalada Kismaayo dhawaanahan ku sugnaa ugu horeyntii ayaa waxa goobtaasi hadal kooban ka soo jeedisay wasiirada haweenka arrimaha qoyska maamulka Jubbaland Qamar Xaaji Khaliif waxaana ay sheegtay maanta waxa sharaf weyn ah la kulankii aan la kulanay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo qurba joogtii ka timid daafaha North America Europe iyo Carabta iyo Afrika intaba ka timid oo casuumaadii qada sharafkeedu noogu sameeyay guriga cad Jubbaland aad iyo aad ayuu madaxweynaha u mahadsan yahay soo dhaweynta uu soo dhaweeyay anagoo dhan baan soo wada dhaweynay anigoo ah wasiirada haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka maantana waxay noogu yimaadeen Jubbaland ayaga oo raadinaya assessment inay qabtaan dadkooda wax u qabtaan sidoo kale waxa markaasi goobtaasi hadal ka soo jeediyay qaar kamid ah oo mahadcelin u badan xubnaha qurba joogta iyagu kulankaasi goob joogta ahaa marka laakiin Jubbaland kooda kamanihin waan leenahay anaga dhan mas'uuliyad inaga saaranta inaan wada sameeyno qof kastana howlihiisa amba gurigiisa asaa dhisana horumarana laga rabo inay ma aha kaliya dadka horumarka hadii horumar la rabo in siyaasadda ku jirto laazim ma dadka siyaasiyiinta of course maamulku way wadayaan waxyaalo fara badan amnigeena waxyaalo fara badan ay mas'uuliyad ka saaranta laakiin anaga qaybta kale inaan horumar wadanka aan sameeyno dadkuna inuu hal meel u wada jeesto ma fiicno wadanka markuu horumar raadinayo security dad inay u diyaar garoodo security la'aan naga ma imaaneen alxamdulillah maanta Kismaayo 10 casho way dhan tahay I sleep waan seexdaa waan soo toosaa wax dhiba ma arkin jidka waa I mean all the way airport kan tagaa meel kastaan tagay lugahaygan ku tagay hal askari ma raaco hal wiil haday u badatana raaco waan diidnay guriga waxa laga yaabaa in foosiyo inaan joogno markay horta waxa la dhahayo security ma jiro rag baa u dhintay u rafaaday security wuu jiraa insha Allah taas aan rajeynaa inay sii socoto marka wadankiina bal soo fiirino in badan baan loo sheegay dhibaato jirto dad baa lagu dilaa dad gaar baa la targeeya laakiin hadda maalmaha aan joogay ataa qori maana maqan bixitaankiis waa targeeya hataa inaan jiifka maro garin aanan garanaynin aan sometimes dadka soo ayraado meesha laga soo qaado marka jarxada again aan ku leenahay hambalyo ugu dambeyntiina kulanka waxa soo xiray madaxweynaha Jubbaland Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ku dhiirigeliyay qurba joogta Soomaaliyeed in ay ku dadaalaan sidii ay maalgashi wadanka ugu sameeysan lahaayeen gaar ahaan deegaanada Jubbaland waxaana isagoo arimahaasi ka hadlayna uu sheegay waan idinka mahadcelinayaa cidii wax keentay cidii sahan ku timid cidii rabtay inay maalgashi cidii kaliya bal inay eheladii soo booqata xataa u timid aad baan idinku mahadcelinaa idinna soo dhaweynaa waxaan rabnaa inaan wax ka bedelo oo mas'alada qurba joogta iyo maalgashiga iyo qurba joogta ana waxaan ku rabnaa waxa kuwa wax qabanayo oo dadka wax u qabanayo oo ugu yaraan xataa ma aha in dhaqaale iyo investment maalgashi ma aha maskaxda iyo cuquusha u baahan in la dhaqo maanta markaad idinkoo 5 state ka wada yimid ka kala yimid oo markii horena 4 district iyo 10 kalaan iyo oo qaybsan intaas oo xaafad idinkoo wada socdaal isla timaadaan oo xaafadba mar tagtaan community walba mar la hadashaan cid walba idinkoo isku tiim oo la hadashaan isbedel baa dadku imanayso dadku waxbay dareemayaan Soomaalinimaday dareemayaan wadaniyad bay dareemayaan midnimaday dareemayaan waxa ka dhaxeeyay dareemayaan marka xaqaan soo dhawaada oo ku soo dhaweynayna gacmo furan ku soo dhawaada aadan maxamed salaad raadiyaha iyo telefishinka qaranka magaalada Kismaayo